hawshan maanta socota waa degmada Afgooye goob ka mid ah gaar ahaan webiga Shabeelle oo laga bixinayo wasaqda waxa soo boqotay maamulka degmada Afgooye laamaha ammaanka oo qayb ka ah taliyaha ciidanka booliiska degmada Afgooye gudoomiyaha degmada Afgooye ayaa goobta ku sugan oo asal markaas qayb ka ah shaqada cid wada hadartan waxa la bixinayaa qaar ka tirsan waxyaabaha markaas geedaha oo kamid ah sida geedaha u jeedaan oo waaweyn iyo qashimada halkaas ku jira hawsha waxa iskala qayb qaadanay beeraleyda degmada Afgooye iyo maamulka degmada Afgooye oo gabi ahaan markaas shaqada maanta u siman gudoomiyaha degmada Afgooye marka loo eego iyo gudoomiye ku xigeenka degmada ayaa halkan yimid iyo gudoomiye ku xigeenka maaliyadda oo asna markaas shaqada qayb ka ah taliyaha ciidanka booliiska degmada Afgooye Amiin ayaa asna waxa uu markaas goobjoog ka yahay hawsha ka socota gudaha degmada Afgooye haddaba shaqada iyadoo socota waxa meesha kala kulmay gudoomiyaha degmada Afgooye duqa magaalada ah Cabdinaasir Macalin Ibrahim hawsha socota hal iyo labo gudoomiye iga waran hawshan socota ee maanta ee webiga ayaan Afgooye joogno runtii aadan ugu faraxsanahay iskaashatada beeraleyda guddiga beeraleyda shacabka reer Afgooye saraakiisha amniga ciidamada amniga oo si toos maanta runtii aan ugu wada qayb qaadanayno qashan bixinta webiga iyadoo runtii ee saawoodeeda dhammaan in webiga sidii la rabo aan dhigi karno marka waxaan baaq u direynaa wasaaradda howlaha guud ee booliiska dawladda dhexe wasaaradda howlaha guud ee booliiska dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo hay'adaha ku shaqada leh xagga beeraha si ay gacan ugu geystaan samata bixinta ka waran shacbiga Soomaaliyeed ee Afgooye jooga ayna maxaa kaga waajibaa arintan socota runtii baaq ayaan u dirnay ganacsatada degmada inay ka qayb qaataan hawshan maanta socota waxay qayb ka tahay baaq hore aan ugu dirnay beeraleyda degmada Afgooye waxay kor noogu soo degi maayo cid kale noo imaamayso deegaanka annaga iska leh dalka annaga iska leh marka inaan iskaashano waayo koosada Afgooye lagu beero waxa laga isticmaalaa qaybaha kala gedisan ee dalka marka taas waxay cadeynaysaa webiga inuusan quusin reer Afgooye oo kaliya marka shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan u dirayaa baaq in ay ka qayb qaataan carab bixinta iyo qashin bixinta webiga si loo badbaadiyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gudoomiyaha degmada Afgooye iyo kaasi ahaa u jeedaan waa qashin tan aan taaganahay waa bundaweynti webigii haddii biyihiisii inta ay ku hakadaan maxay isticmaalayaan beeraleyda naga dambeeso webiga hadduu biyo yareeyo waxaan sida caadada ah qayli ka soo yeeri jirtay deegaano qaar oo ka mid ah degmada Qoryooley marka dhammaan maamulka koonfur galbeed runtii qayb ayuu ka yahay dadaaladana waa wadnaa baaqaas mid la midna waxaan dirayaa cid Allah oo ka qayb qaadan karta carab bixinta webiga sida marka horeba ay noogu dhagin dhammaan iskaashatada beeraleyda saddexda degmo Balcad Jannaale iyo degmada Afgooye. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.